ururka kubadda cagta ee FIFA ayaa soo saartay liiska kama dambeynta ah ee ciyaaryahanada u sharaxan abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan sanadkan, gaar ahaan dhinaca ragga ee loo yaqaano Ballon d'Or. liiskan ayaa waxaa ka mid ah ciyaaryahanka u ciyaara naadiga reer Ingiriis ee Liverpool una dhashay dalka Masar ee Mohamed Salah, waxaana sanadkan ka maqan laacibka reer Brazil ee Neymar. ciyaaryahanka reer Portugal ee Ronaldo ayaa haysta abaalmarinta isagoo ku guuleysanayay labadii sano ee u dambeeyay, waxaana guud ahaan haysta 5 abaalmarinood. waxaa isna dhankiisa haysto tiro intaasi leeg ciyaaryahanka reer Argentina ee Lionel Messi. Neymar oo sanadkii u dambeeyay ka mid noqday 3 ciyaaryahan ee isugu soo hadhay tartanka abaalmarinta ayaa sanadkan 3 bilood ku maqnaa dhaawac, kaasi oo hoos u dhigay ciyaarihii uu safan jiray iyo weliba wacdari uu ka dhigi jiray garoonada kubadda cagta. sidoo kale waxaa liiskan ku jira laacibkii ku guuleystay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee koobka adduunka Luka Modric ayaa qarankiisa soo gaarsiiyay ciyaartii kaba dambaysta ee koobka adduunka, iyadoo qaranka Faransiisku kaga qaadeen 4 gool iyo 2. sidoo kale isna liiskan waxaa ku jira ciyaaryahanka da'da yar ee reer Faransiis Kylian Mbappé oo isna ku guuleystay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa da'yartii ka soo qayb gashay koobka adduunka ee ku soo dhamaaday dalka Russia. sidoo kale waxaa liiskan ka mid ah ciyaaryahanka khadka dhexe ee ka ciyaara Eden Hazard ayaa qarankiisa meel fiican gaarsiiyay, inkasta oo naadigiisu aanu sanadkan gaadhin meel wanaagsan iyaga oo ka hadhay koobka horyaalka Yurub ee Championka. laakiin Hazard waa ciyaaryahan leh xirfad wanaagsan oo ku hanan karo abaalmarinta. liiskan waxaa isna ka mid ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan koobka adduunka ee Harry Kane ayaa ah kabtanka qaranka Ingiriiska, waxaana uu saftaa naadiga Tottenham. Harry Kane ayaa koobka adduunka ka dhaliyay 6 gool. liiskan oo soo saaristiisu ay ka qayb qaateen ciyaaryahano hore oo ay ugu horeeyaan ciyaaryahankii reer Brazil ee Ronaldo, laacibka reer England marna ka tirsanaa naadiga Chelsea ee Frank Lampard, iyo weliba ciyaaryahankii hore ee Fabio Capello iyo ciyaaryahano kale. liiska ciyaaryahanada u tartamaya abaalmarinta ayaa sidan u kala dhigan: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Eden Hazard, Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Luka Modric, Rafael Varane, Harry Kane, Antonio Griezmann. sidoo kale FIFA waxa ay soo saartay 11 tababare oo sharaxan tababaraha ugu wanaagsan sanadka 2018 iyagoo ay ku jiraan tababarayaashii ugu cadcaddaa koobka adduunka. liiskan oo ah 11 tababare ayaa u taxnaa sidani: Massimiliano Allegri, tababaraha naadiga Juventus; Cherchesov, tababaraha qaranka Russia; Delic, tababaraha qaranka Croatia; Didier Deschamps, tababaraha qaranka Faransiiska; Pep Guardiola, tababaraha naadiga Manchester City; Jurgen Klopp, tababaraha naadiga Liverpool; Roberto Martinez, tababaraha qaranka Belgium; Diego Simeone, tababaraha naadiga Atletico Madrid; Gareth Southgate, tababaraha qaranka England; Ernesto Valverde, tababaraha naadiga Barcelona; Zinedine Zidane oo tababari jiray naadiga Real Madrid.